farta ay qoraan dhakhaatiirtu waxay muddo dheer ahayd mid aan si wacan loo fahmi karin taasoo markaad aragto kuula muuqanaysa sidii warqad uu qof ku feegaaray oo kale waxaana aynu aragnaa xariijimo isku darsamaya oo aynan macnahooda oo keliya garanaynin laakiin aan sidoo kale la fahmi karin meesha ay kelmaddu ka bilaabanayso iyo halka ay ku dhammaanayso daraasado iyo baaritaano arrintaasi laga sameeyey waxaa lagu ogaaday in sababaha keenaya inay dhakhaatiirtu sidaa wax u qoraan ay ka mid tahay iyagoo dhakhaatiirtu warqado badan si degdeg ah wax ugu qora oo ku dadaalaya inay kelmad walba oo bukaanku u sheegay ay qoraan inta uu la fadhiyo sababta labaadna waxa weeye iyagoo dhakhaatiirtu dareensan in fartan ay qorayaan ay tahay mid badankeedu aan xafiiska dhaafaynin oo laga yaabo inaan cid kaleba arag sidaana isaga sahashaday qoraalkooda iyagoo aan ahmiyad basiinin sida ay wax u qorayaan laakiin awoodda saara had iyo goor xaaladda qofka bukaanka ah iyo daaweyntiisa arrinta kale ee jirtaa waxay tahay iyadoo warqadaha ay dhakhaatiirtu qoraan ay u tagaan dad kale oo ama dhakhaatiir ah ama shaybaadhlayaal ah amaba farmasiyada dawooyinka jooga kuwaas oo dhammaantood ay isku qoraal iyo far yihiin dhakhaatiirta guud oo ay isfahmayaan manaha qoraalka dhakhaatiirtu mid loogu talagalay dadka caamka